madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta dib ugu soo laabtay Somaliland warkaasi waxa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaheena Cabdiraxiin Axmed Mahdi madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safar uu muddo uga maqnaa dalka Jamhuuriyadda Djibouti madaxweynuhu markii uu ka soo degay garoonka diyaaraduhu ka haadaan kana soo degaan Cigaal International Airport waxa si diiran halkaasi ugu soo dhaweeyay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed taliyaasha ciidamada qaranka iyo asluubta maareeyaha hay'adda duulista madaarada Somaliland Maxamed Cabdi Rodol intaasi kadib waxa warbaahinta la hadlay Dr. Saad Cali Shire wasiirka umuuraha dibadda Somaliland waxaanu ka warbixiyay safarka madaxweynuhu ku tagay dalka Jamhuuriyadda Djibouti saako sinina oo bisha tahay 8 waxaanu ka soo laabanay dalka Djibouti annagoo wafdi uu hogaaminayay madaxweynuhu oo ka kooban wasiiro iyo taliyaasha ciidamada intii aanu joognay Djibouti si wanaagsan oo milgale oo qurux iyo xaraga leh ayaa naloo soo dhaweeyay waxaanu saragnay madaxweynaha waxaanu la kulanay wasiirada dhigayaga waxaanu soo maray kormeer ku soo maray mashaariic xarumada oo aad iyo aad u badan oo qiimo badan oo ku dayasho mudan xalayna waxaanu la kulanay jaaliyadda si wanaagsan ayuu safarkaas noogu dhacay mid saaxiibtinimo shaqaab uu ahaa mid inaga dhaxeeyay ninkii Djibouti weeye sida caadi ahaan jirtay hadii jeer marka madaxweynaha la doorto wadanka ugu horeeya uu tagaa waxay ahaan jirtay Djibouti taasoo ka turjumaysa يعني ehelnimada iyo maxay raadayay cilaaqaadka wanaagsan ee naga dhaxeeya dhinac walba Dr. Saad Cali Shire wasiirka umuuraha dibadda oo warbaahintu weydiisay sababta calanka Soomaaliland loo daba dhigi waayay markii uu madaxweynuhu ku sugnaa Jamhuuriyadda Djibouti waxa uu si kooban ugu jawaabay waxa la inoo soo dhaweeyay sidii wax la inoo siiyay protocol buuxa ee madaxweynaha la siiyay madaxweynaha soo dhaweeyay wasiiradiisa soo dhaweeyay si wanaagsan oo milgale ayaa naloo qaabilay qasriga naloo ku qaabilay markastaba waa sida madaxweynayaasha loo qaabilo laakiin waxa dogaatay horta inaan deelayna wali aan layna ictiraafin taana maskaxda ku hayada laftigeeda calamo fara badan maxay raahday waa noo ku soo dhaweeyay Somaliland intaan joognay hadaan dabool macnaheedu maaha taas si fiican oo milgale layno ma soo dhaweeynin sida la soo dhaweeyay sida ugu qiimaha badan leh anu muddo badan ma dawladda ku soo jiray marka ilaa 8 sanadood marar fara badan dalab badan baan tagnay madaxweynaha lagu soo dhaweeyay sida la inoogu soo dhaweeyay Djibouti si lamida cid inoogu soo dhaweysay ma jirto aad baan ano fursadan ka faa'iideysanaya madaxweynaha iyo dawladdiisa iyo dadka reer Djibouti aad iyo aad baan ugu mahadcelinahay Cabdiraxiin Axmed Mahdi telefishinka RTN magaalada Hargeysa.